booliska koonfur afrika ayaa islaantan aqliga badan aanan lahayn oo aada u jeetaan waxay dhigeen xabsiga kadib markii lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo weliba shaqo aanay shaqadeeda ahayn inay qabatay oo ah inay sharciga gacanteeda ku fulinayso taasoo la sheegay inay tahay gaboodfal iyo tacaddi ee u geysanaysa ganacsiyada dadka iyadoo habraha iyo ciyaalka iyo dadweynaha soo wada kicinayso dugaamadan hal boobadhaysa ay kaamarooyinka soo qabteen muuqaaladeeda ayaa lagu baahiyey baraha bulshada iyadoo xoolo islaamada iyo dukaamada dadka ajaanibta hal boobadhahay asalkeeda naagdan waxay ka timid dadkii la dhihi jiray duduula operation ee tuugada ahaa ee dadka dukaamada ka xiraayay ayaguba ka dambeeyeyba sumeynta cunooyinka dadka ajaanibta ayay ka timid marka ay u ololey jirtay waa naag inta badan lagu yaqaano micnaha isr nacayb dadkan dukaamada leh inay tiraahdo dadka guryaha xitaa inay u tagda inay tiraahdo dadka kama gareegi jirtiin guryaha oo habraha xitaa u hanjabi jirtay marka booliska ayaa xiray waa musiibadeeda iyo sharteeda laga qabtay dadka waxaana la yiri inay ku kacdo wax aysan sharci u lahayn ama baylow aysan u lahayn oo shaqo ayadu sababkii ahaanba aan loogu talagelin inay qabato waxaana lagu tilmaamay inay ahayd qof micnaha criminal qaabkay u dhaqmaysay wararka naagna ay ku hadlayso laga duubay waxaa ka mid ahaa Baba, please, those are your card there. Put your things and Before it's too late, Yes. please just come now. Don't waste any time. your card there. Yeah, it's only safe. Come with a van. Come with a van. He's still going to call the other day he called his friends, all of his friends. Now he's waiting for them. That's why he's quiet. We were there with you. We told you to close this father shop. So why are we saying? He now, West is big, he's calling his friends and the police. Call them. But now, do us a favor, put your truck there. Put your truck there and So, must we move this car? Yeah. Okay, can we move the car, please? Yeah. Yes. naagta la xilay falalkaas ay gacmaha kula jirtay ku raacan oo ah inay dadka xitaa ay tiraahdo ma la bixi kartiin wixiina meeshan waxaa la timaadeen marey ka taga guryaha islaamiyada dhisaysiin ma guryihiina dhisatiin micnaha hadallo oo micnaha disciplinary ahayn oo South Africa dambi ka inaad qofka micnaha ugu yeerto ama aad ku tiraahdo xitaa ay ku hadlaysay xabsiga ayaa la dhigay waxaan la sheegayaa in maxkamadda la soo taagi doono maalmaha soo socdo iyadoo lagu haysto waliba tariitanin inay micnaha ay dad u hanjabtay isla markaana ay dhibaatooyin kale oo badan geysatay waxayba ku lug yeelan kartaa waxay ka dhacayba locationada Naledi iyo waxyaaba iyo dukaamadii la bilaqaystay ay ku lug yeelan kartaa marka ilaa hadda ma jirto wax cadeyna oo micnaha in ajnabi uu sun cunno ku daray laakiin iyadu waxay afkeeda ka qaraysaa inay cuntada ilmahooda ay cunaan ay sumeeyaan ay dadkeeda rabaan inay dalkeena ma nagu dilaysaa waxyaaba saas ay leedahay You go around building, now we are taking what belongs to us. You go around building in a foreign land. You think that is wise? Where were you before? Where are you? What do you mean? This is my country. This is my country, Baba. It's you You cannot have a big It's you house making in a... this building. It's you. Why would you build a house in a foreign land if you are a wise man who can think? How can you build a house in a foreign land? Now we want our things. What are you going to do about it? You scared of You are white going to... people and you are fighting No, with us. that's not your fight. scared of Leave white us with white people. We'll White we are people dealing are not in our Scared of Now we are country. dealing They are with not you. in Now our we are dealing with you. location. What The else white will you people do are about not it? in our There's nothing location. fuck all you do about it. We are telling you now. You fix Mamela. it. So it's now a Raise your own racist government. The whites are Raise your own government. are not making I'm telling you. are not making If our you are clever, you are going to build in your country. If you were clever, we are going to... Hey, if you are clever, you are fine. Hey, in my country. Do you get that? Yeah. You got Threatening in my that. country. Be a big man there in your land. can't tell Be a about big my man in country. your land. qaabkeeda haddaa fiiriso waad dareemaysaa in qof la adeegsanaya ay tahay oo waxa loo soo diray wax kale xitaa is kala aqoon oo dad ay ku shaqaysanayaan waad dareemi kartaa marka hadda xabsigii jaalaha ka xaaxaabisa marka